wabarakaatu. waxaan maanta bilaabaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ama isku daynaa inaan qorno mid ka mid a networkii hore aan hore usoo qoray. waxaan qoraynaa maanta static configuration. Let's go. insha allah in bilaabaynaa la socod wanaagsan haddii ilaahay yidhaahdo. marka hore waxaa lasoo furinayaa siska bucket tracer. markaad soo furato then waxaan ku practice garaynaynaa 2 router iyo 2 switch. then marka labada switch iyo labada router ku switch garayno then idinka practice garaya more times haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan isku daynaa inay noo shaqeeyaan aan isbarno. static waa dee different id la isku baro. marka bal waxaan bilaabaynaa ama isku daynaa dee inaan bal laba different oo id inaan isbarno. mid waa 192.168.0.0 waa private c ama galaxy of private 172.160.0.0 class b of private. then labada router waxaa isku xiri doona class a hadii la yiraahdo 1 2 1 1. numbradan yaryar waxa weeyaan waa gateway-yadii. labadaas waxay wadaagayaan kana wadaagayaan kana isticmaalaya. then gateway-ga ninkan ama qofkan ama address-kan waa 1. gateway-ga address-kan isna waa 1. gateway-yadan labadan midkaad 1 ka dhigtaa waa midkii kale, kana 1 ka dhignaa kana 2 ka dhignaa. then halkan aan kasoo bilaabina configurationka sidaasaan wadayno waan dhamayn haddii la yidhaahdo. then waxaad qoraysaa su-aalo badan oo dialogue ku furayaa, laakiin haddaad noo tiraadid is okay. adaa configuration garaynaya. enable config waxaan horaan uga soo hadalnay int find 0/0 ip addresskiisu waa 10.10.0.0.1 255.0.0.0 waa class b oo ah ka halkaasaan iminka configurate garaynaya ama halkaasaan shidaya. then waxaan oranayaa enter. waxaan oranayaa no shut ma shidmin. markan kaa isna shido ayuu shidmayaa. insha allah waan arki doonaa. haddana waxaynaynaa saas wada ka soo baxaysaa. waxaynaynaa kaayar ba halka albaabkaasaan waxaynaynaa haddii la yiraahdo inti find 0/1 waa kaa waa 1 kaayar baan waxaynaynaa ama halkaasaan waxayn albaabkaasaan iminka waxaynaynaa. ip addressku wato waa class b 172.160.0.1 255.255.0.0 no kanuu shidmayaa because wax kale kuma sixino ama router kale kuma sixino markaa shidmay. haddana waxaan kana ku xijisiinaa. then imku shidmi markaan idhaahdo enable configuration terminal waxaa loo soo gaabsadaa config sidaan hore kusoo sheegnay. waxaan oranaa int 5.0/0 ip addressku wato waxa weeye 10.0.0.2 because kii hore wuxuu ahaa 1.0.0 no shut. haddaad saa qortid iyo no shut down haddaad qortid asane hadduu shidmo because albaabkii kalaa isna la configuration gareeyay ama la programiyay. then dib uga soo bax. waxaan qoraynaa ka kale
IP address waa 192.168.0.1 255.255.255.0 nooshaad hademin. then waxaan eegnaa bal inay wada sheekaysan karaan. horta waad iyagana IP addresskoogaa siinaysaa .1 .2 1ku wuxuu albaabka kan wuxuu noqonayaa 2 gatewaygu waa waka magaciisa halka ku qoran yahay gatewaygu kanna waa kan gatewaygu waa 1 albaabkiisa micnaha halku ka bixi doono waa 1.2.1 waa gateway albaabkiisa 1 qaatay. then iminka haddii aan bal isku dayno bal inay wada sheekaysanayaan ma wada sheekaysanayaan halka maybe inuu gaadhaya because waaba albaabkiisi laakiin halkaa ma gaadhayo because maba garanayo isma garanayaan. kana inuu albaabkiisa soo gaadho laga yaabo because way is yaqaanaan. then waxaa ka bilaabaysaa kan marka statigu waxaa ku jira halka yar logigaasoo ah inaad qaybtan aad ku qortid kaa qaybtanna aad ku qortid kaa it means AD-gan kan IP address-kan iyo IP address-kan halkan aad ku qorso waxaa odhanaysaa it means waxa weeyaan like dee sidii qof oo kale waa hebel oo kasoo baxaya albaabka hala aqoonsado kanna waa hebel oo albaabka kasoo baxaya hala aqoonsado like that weeyaan. kani waxa weeyaan 172 waa glass B oo dee routerkan ku xidhan routerkanoo aqoonso weeyaan. then let's start aan bilowno hadii la yiraahdo waxaa odhanaysaa IP router markaad IP router tiraadid kana intanaan qorayno iminka intanaan qorayno oo kaasaan barayno IP router 192.168.0.0 halkuu kasoo baxaya wuxuu kasoo baxayaa 10.0.0.2 halkaasuu kasoo baxaya aqoonso 192 router IP root weeyaan. waxaan qalday router baanigu waa root halkaasi waa root waka aqoonso weeyaan uu aqoonsaday iminka. kanna waxaan oranayaa aqoonso anna inuu IP address halkaa ka dambeeyo oo switch ku xidhan yahay aqoonso waxaan oranayaa IP root 172.160.0.0 isagana maaskiisu waa 255.255.0.0 10.0.0.1 halkaas ka soo baxay uu aqoonsaday. then waxaan eegna iminka iyagoo different inay wada sheekaysan karaan. marka hore maybe inay siyaraan waa in process micnaha uu xaqiiqsanaya inuu isaga yahay iyo inka waka waa successful. marka horena may wada xiriiri jirin waka successful because iminka waxaa xaqiiqsaday in routerkan in laga kan wuxuu xaqiiqsaday routerkan inuu wax ka dambeeyo la idhaahdo 192.168.0 kana ama albaabkan wuxuu xaqiiqsaday inuu wax halkaa ka xigaan that's why baa loo idhaahdaa static configuration. magaceedu waxaa la idhaahdaa programkan static configuration ama config. that's it halkaasi noogu dantahay guys. isku daya inaad insha Allah in badan aad haysaan configurationka because haddaad networker tahay muhiim weeye inaad basics ka soo dhigto insha Allah. halkaasi noogu jeedisaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
inkastoon rabin haddana waa static configuration